bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti waana wanaagsan dhammaan baaqyarta sharafta leh ee ku xidhan dhexnimo midiya ku soo dhawaada kormeerka wararka toddobaadkan. qodobada ugu waaweyn waxaa kamid ah Afghanistan heshiis laga gaaray khilaafkii siyaasadeed, gudoomiyaha gobolka Mudug oo ku dhintay qarax ka dhacay Gaalkacyo, madaxweynaha Kenya oo kordhiyay waqtiga bandowga dalkaasi Kenya, Talyaaniga oo dib u furay isku socodka hawada iyo xuduudaha dalkaasi kadib dhaqaalayaal soo food saartay Talyaaniga. qodobadaasi waa kuwa ugu waaweyn toddobaadkan haatan iyagii oo faahfaahsan. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qarax lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug ee Puntland. Al-Shabaab waxay sheegatay inay haysteen gudoomiyaha la dilay dilkii iyo xadhigii dad badan. qaraxu waxa uu ahaa mid isqarxineed oo loo maleynayay qofka fuliyay inuu watay mooto bajaaj laga soo buuxiyay walxaha qarxa. madaxweynihii dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo Abdullah oo kula tartamayay doorashadii madaxtinimada kadibna ku eedeeyay Ghani inuu ku shubtay doorashadii ayaa maanta lagu wadaa inay saxeexaan heshiis awood qaybsi. heshiiskan ayaa lagu rajay inuu soo gabagabeeyay khilaafka siyaasadeed ee dowladda, isla markaana uu wadada u xaaray in la ballaariyo wadahadalada ay xukuumadda Afghanistan la gasho kooxda Taliban si loo soo afjaro dagaalka sokeeye ee wadankaasi ragaadiyay. wargeyska The New York Times oo helay nuqul ka mid ah heshiiskaas ayaa sheegay in Abdullah uu hogaamin doono wadahadalada ay dowladdu la furi doonto Taliban. isaga iyo madaxweyne Ghani ayaa soo magacaabi doona tiro isleeg oo ka mid ah golaha wasiirada iyo inay qayb ku yeelan doonaan magacaabidda gudoomiyayaasha gobolada. madaxweyne Ashraf Ghani ayaa si ahaan doona madaxweynaha dalkaasi Afghanistan. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kordhiyay waqtiga bandowga dalkaasi Kenya muddo 21 maalmood. Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu amray inaysan ka soo gudbi karin xadka dalalka wadankaasi uu la wadaaga Soomaaliya, Tansaaniya gaadiid aan ka ahayn kuwa xamuulka qaada. tallaabooyinkan uu ku dhawaaqay madaxweynaha Kenya ayaa ah mid lagu doonayo in lagu soo xoojiyo dadaalada lagu doonayo in lagaga hortago cudurka COVID-19 amaba coronavirus. tirada uu dalkaasi ku soo ritay ayaa gaaraya 830 ruux, halka 50 ruux ay ku geeriyoodeen isla dalkaasi Kenya. isaga oo la hadlayay shacabka Kenya ayuu Uhuru Kenyatta sheegay inay kordheen dadka laga helay cudurka COVID-19 kuwaasoo ka soo gudbay wadamada deriska la ah Kenya. 43 ruux oo laga helay cudurka toddobaadkii hore gudaha dalkaasi Kenya ayaa la sheegay inay ka yimaadeen dalalka Soomaaliya iyo Tansaaniya. sidoo kalena waxaa la amray in laga baaro cudurka koronaha darawalada gaadiidka xamuulka awad ee ka soo gudba xadadka. dowladda Talyaaniga ayaa ku dhawaaqday in laga bilaabo 3 Juun dalka Talyaaniga la ogolaan doono in la soo galo iyo in laga baxo. sidoo kalena waxaa la ogolaan doonaa in laga kala goosho gobolada dalkaasi. goobaha jimicsiga, dabaasha iyo xarumaha ciyaaraha ayaa dib loo furi doona 25 bisha May, halka 15 Juun dib loo furi doono iyagana xarumaha filimada lagu daawado ee loo yaqaan shiimooyinka iyo tiyaatarada. musaafiriinta ka yimaada wadamada midowga Yurub ayaa loo ogolaan doonaa inay Talyaaniga galaan iyagoo laga samayn doonin toddobaadyo karantiila. tallaabooyinkan lagu dhawaaqay ayaa qayb ka ah dadaalada dib loogu soo celinayo dhaqaalihii kadib muddo 2 bilo oo ka badan xayiraadu saareed ee dalkaasi. mas-uuliyadda Talyaaniga ayaa sheegay in dad gaaraya 30,763 qof ay u dhinteen fayraska koronaha, isla wadankaasi Talyaaniga uu noqonayo dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan marka laga soo tago amaba laga yimaado wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska. daawadayaal, intaa waxaan kusoo koobaynaa kormeerka wararka oo ah